بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد شركة جرائد وحكو سابسين هاي عاو inaan ahaa qof musharax ah u tartamaya beesha Sheekhaal Gandarshe kana mid ah gabdhahooda iyo ama siyaasiyiintooda beesha u dhashay. alxamdulillah ilaahay mahad iyo amaan oo dhan u sugnaatay. waxaan rabaa baaq inaan halkan ka jeediyo cawasho ah oo ku saabsan maamulka Koonfur Galbeed. alxamdulillah ilaahay mahad u sugnaatay. ilaahayna nagu arsaaqay diinta iyo maaragtay akhlaaq wanaagsan. magacaygu waa Dictores Yaasmiin Yuusuf Maxamed, runtii bulshadana waqti badan u soo shaqaysay, kana mid ah gabdhaha beesha u tartamaya ama beesha u sharxan. muddo 1 sano iyo 2 sano dheeraad ah siyaasad soo waday. dabcan bulshadana si fiican iyo garanayso shirkeyga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay kursigii 45 ee lahayd maxaan ku raahdaa beesha Sheekhaal Gandarshe. tirsigiisana uu ahaa hoob 45 deegaan doorashadiisana ay ahayd gobolka Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimadda Baraawe. waxaan cawasho ka nahay madaxweynaheena sharafta lahaa Cabdicasiis Maxamed Laftagareen. runtii waxaan cawasho ka nahay in kursigeeni la boobay. runtii khudbadihiisii hadda ka hor waxaa ku jiray oon dhageysanaynay ama dadkii fadhiyaan ka mid ahayn in uu yiri boob baa la leeyahay laakiin boob ma ahan buu yiri. kursi qof laga qaaday baa in adeerkiisa la siiyay. dabcan teeni sidaas waa ka duwan tahay. teeni aad bay u xanuun badan tahay, aad bay u xanuun badan tahay. waa very dangerous. waa Sheekhaal Gandarshe hal kursi leedahay. dad baa 3 kursi leh, dad baa 7 kursi leh, dad baa 12 14 leh. anagu waxaan haysanaa hal kursi oo beesha Gandarshe ay ku tartamaan. runtii dadka kursigaas lagu matalanay ay ka badan yihiin intaas oo milyan oo maaragtay oo qoys ah baa maaragtay loogu shaqeeyaa. dabcan kursigeygii dadkii garanaayo waxaa ku fadhiyo Cabdirashiid Maxamed Axmed, Cabdirashiid Sheekhaalo, wasiirka Badaroolka, walaalkay baa ku fadhiyay. waxaana kursigaas loo boobay beel aan beesha u dhalanin oo aan Sheekhaal Gandarshe ahaynin oo ah beel la yiraahdo Sheekhaal Jaziiro. kursigeeni boob baa galay. kursigeeni waa la dhacay. dadku way dhahaan kursi baa la dhacay way dhahaan, laakiin keeni waa dhicid aan waxba aan geed loogu soo gaban waayo oo aan cid looga hibaystay ama cid lagu sharfay ama oday lagala tashtay aysan jirin. waa kursi si cad loo dhacay waayo oo loo bareeray in la dhaco. maxaa yeelay kursigeygii maanta wasiirka ku fadhiyay lagama qaadin oo lama siinin qof walaashiisa ah ama wiil walaalkiisa ah lama siinin, ama xataa qof ay tirsadaan xataa lama siinin. waxaa la siiyay beel aan diyo qaybsanin, beel aan waxba isku darsanin, beel aan jufada ahaynin baa la siiyay. Allahu musta'aan. waxaa la soo saaray odayaashii yacni soo xuli lahaa irgada oo aan beesha ahaynin, oo odayaashii markay arkeen inay odayaashii ahaynin la arkay. annagiyo dadkii musharaxiinta ahaa oo Baraawe tagayna in wax naqaabile aan weynay. dabcan albaabadana laga xirtay. Cabdirashiid beesha u dhashay wuu soo tartami karaa kursigaasiga leh. annagana waa la leenahay. annaga aan isku dirino, aan isku dilno ama aan isku dooxno. annaga dad wada dhashaan nahay oo wax wada qaybsan kara. qof marna qof qaban kara. laakiin in kursigeeni inta la qaato qolo kale loo boobo, arinkaas waa arin aad riski u ah. waxaan leenahay madaxweyne madaxweynena tahay waa ku jecelnahay. Koonfur Galbeed dadka aad ku matasho waa annaga, waa dadka aad meesha ugu shaqeyso waa annaga oo dadkaagii ah oo shacabkaagii ah oo Koonfur Galbeed ka soo jeedo. dabcan inaan kugu xadgudubnana ma rabno. maamulkii meesha ilaahay baa garsooro ahay, adiga meeshaas garsooro ka ah. waxaan rabnaa ilaahay inaad ka cabsato kursigeeni aad meel ku sheegto. kursigeeni reer baa faasiisay. annagoo markii horeba runtii cabasho ka ahayn in muxuu ahaa nin in adeerkiisa inta gudoomiye looga dhigo
asigina kursiga loo boobo dabcan maxaa laga filan karaa meeshaas waxba lagama filan karo mudane madaxweyne aniga ku hor fariistay oo kula hadlaayo nin dhintay nin dhoofana waa kala xanuun badan tahay waad nooshahay beenka ma sheegayo aniga horteeda ka dhaxday oo ka codsaday doorasho daafuran inaad qabanaysa aad balan qaaday oo aniga aad igu tiri doorasho daafuran baa ladin qaban doonaa ciidadii ma dulminayso waad u soo tartami kartaa beeshaadi wax dhib iyo problem ma taagna waxa weeye ladima dulminayo ladima abuse gareynayo dabcan arinka iyada ah mudan madaxweyne malaa'ig baa garbahaaga saaran inaad ka dhabaysaa rajeynaya waxaan leeyahay guddiga doorashooyinka federaal iyo siidba waxaan u sheegayaa waxay tahay iyo xalinta khilaafaadka kursiga iyada ah kursigaas asiga ah hoob 45 ah sumadiisii noocaas tahay oo baraaba yaalo dabcan aan filayo in khamiis ama arbaca doorashadiisa la qaban doono waxaan u sheegayaa kursigaas inay hakiyaan kursigaas dood baa ka taagan dadka waa in mudnaan la siiyaa anagoo tiirar manihi dad jiraan nahay dad weligooda soo jirayaan nahay dad ma aragtay laga hibaysto oo ma aragtay muxuu ahaa dadka agtooda muxtaramka oo runtii markii ay dhibaato dhacdo xaal mastuur loo soo aadi jiray oo dadka garta goyn jirayaan nahay in maanta anagoo taagan xoolaheeni la qaato kursigaas dhiig baa ku bixi doona mudane madaxweyne guddiga doorashooyinka bulshada madaxa isku gelinina qabiilo aan waxaan maqli jiray gobol ay dadka isku laayaan qabiil baa la isku laynayaa oo maxay isku laynayaan minshaare isku laynayaan way jirtaa South Africa way ka dhacday gobolada qaar xamarna way ka dhacday dabcan taasoo kale ayaa dhicin dadka inay is ugaarsadaan oo la islaayo mudan madaxweynaha ka talin waxaan halkan baaq uga dirayaa oon cawashadeeda u gudbinayaa waxay tahay mudanahayna maxamed cabdullaahi farmaajo dalka asiga maanta xukumo ugu weyn waxaa ku xigo balaan ministerka maxamed xuseen rooble waxaan leeyahay maxamed xuseen rooble walaalow daba adiga balan qaaday in doorasho daafurnaad qaban doonto xalaal ah waxaan ka rabnaa kursigeenaas inaad meel ku sheegto oo cadaalad aad wax ku xakanto waxaan ka rabnaa arinkaas iyada ah sida ugu dhaqsiyaha badan inaad ficilkeena uga soo jawaabto odayaashiina waxay joogaan baraabe gabdhaheeni waxay joogaan baraabe aniga baraabaan ka imid dabcan qof ma garanayo oo mudnaan aan la siinaynin oo madaxdii aan kula hadlaynin yaad ku matashaa meeshaas yaad ku matashaa waa dadka in tixgelin la siiyaa oo la dhageystaa haddaan la is dhageysanin wax badan baa halaabay dadku waa in la is dhageystaa haddaan la is dhageysan waxba ma xalismaayo marka dabcan waxaan rajeynayaa baaqayga wuxuu ku socdaa madaxweynaha balaan ministerkeena maxamed xuseen rooble oo doorashooyinka kafaalo qaaday wuxuu ku socdaa beesha caalamka civil society-ga allahu mustacaan heal women oo runtii wax badan xogteedii ka warhayso waxaan leeyahay baaqeena meel dhow iyo meel dheerba waa gaarsiinaynaa beesha caalamka warqadaan u dirnay runtii waxaan rajeynaynaa waxaan anaga xaq u lahayn maba doonaynaba weligeena nalaguma arsaaqin waxna kuma raadsan jirin reerkaasna maba u samaysnaba anaga inaan wax dhacno inaan wax boobno reer u samaysan maba nihibi ilaahay barsaaqad meeshaas nagama gelinin oo dad ladan baan nahay alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh laakiin waxaan sheegayaa waxay tahay waxa aan xaqa u leenahay cadaalada laga hadlo haddaan cadaalad laga hadlin dad baa isku layn doona kursigaas hal hakiyo guddiga doorashooyinka waxaan ugu baaqayaa inay kursigaas hakiyaan shirkeyga jaraa'id caawintaas uu ku saabsan yahay waxaana doonayaa waxay tahay mudane madaxweyne waxaan mar kale baaq halkan ugu dirayaa waxay tahay in kursigaas la hakiyo beesha gandashana uu la fariisto kursigeyga aad buu u xanuun badan yahay in aniga kursigeyga la iga qaado aniga hadda qudub iyo reer xasan shiiqaale ila tirsadaan fiiri shiiqaalo bugaa jirto qudub waa jiro reer xasan baa jira dabcan in marka aniga aan kursigooda aado ma suurtagelaysaa qudub kursigiisa miyaan soo tartami karaa waa maya dee haddii marka aan qof walba oo xaquuq Soomaaliya mar hore waxay ku qaybsatay 4.5 baa wax lagu qaybsaday
4.5 baa wax lagu qaybsaday maantana in la isku xadgudbo waa dulmi cad oo aan meel looga soo gaban waayo. marka ninkan la yiraahdo Yusuf Baafo waa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed waa aniga hor fariista waxaan ku iray walaal gacali gudoomiye adiga meeshan cadaaladii gacmaha lagu galiyay oo doorashadan adiga xukumayo adiga cadaalad ridayo adiga dadka cadaaladda ma aragtay runtii ku maamulay mudan gudoomiye waxaan dhahay kursigaas baan rabaa inaan soo tartamo ogow inaan gabar beesha kamid ahay oo odayaasheedina waxaan rabaa inaan ku keeno wuxuu igu yiri safar baan u socdaa waan imaanaya kadib baa odayaashaada ii keeni doontaa wuuna ku fadhiyay inaan beesha gandasho ah markaasaan waxaan ku iri ma waxaa jirtaan ku iri dad beesha kaaga dhex yimid oon aniga ahayn oo aniga ka horteyda aad aragtay ma jiraan baan ku iri oo beesheeda ka dhashay maana arkin buu igu yiri laakiin waxaa jirto qolo jasiiro la yiraaho oo ma aragtaa iyadana kursiga u socoto cabasho ah waa ka afeeftay waa u sheegay waxaan ku iri jasiiro waxoona lama qaybsadaan diyana ma wada baxsano oo diyo xataa nagama dhaxayso wax naga dhaxay ma jiraan waa dad walaalo ah oo maartay runtii Soomaalinimo iyo dadnimo ka dhaxayso oo ehelnimo ka dhaxayso oo Soomaali oo dhan baa walaalo ah inaan marka aan ku iri kursigaas cid nala leh ma jiraan oo annaga waa hal kursi aba dhaxdeena isku leynaynaaba oo aan jufadi kaleba aan heleynin oo laga yaabaa inay 4 sano reer isaga fadhiso الله مستعان هذا الكي وحو شركة جرايد عاو كوكوبين هاي وحي تهاي إن لا يسأبيوس جرايو وح صحة معهن حقنا إن لغو تنطو إلهي رالي كمعهن حقنا لغا محي شوضو مدن المدح وين أرنكاس وحكا قبو أرنكان سوفر قلي الدون كعالم كميل أن لإيغا صوي عين ملها مدن المدح وين أذيقيو قبل كجوغا سيديكو أغان ويسعوا شدين مدح كستو قدوميها والا وع مدح كستو أن وعنا عدنا لحريري سمجران oo aan ka ahayn beesha caalamka warqadeedii qabata dabcan waxaan rajeynayaa waxay tahay arinka iyada ah gabar Soomaaliyeed baan ahay hooyo Soomaaliyeed baan ahay dalka wax badan u soo qabatay maantana u taagan inay qarankeedii iyo dalkeedii oo ay kursigaas ugu shaqeyso waxaan diyaar u ahay waxay tahay wax walba oo xalaal ah diyaar baan u ah erga hadana meesha geysanin oo aday aniga iga socda aanan meesha geysanin maxaan ku soo tartamaan waxaan ku soo xataa dacwad iyo ma furna حتى دعوة إيه مفرنا مركا وحنا وربحنا يقصوا جارين وحيد هاي دعوة كستو الله قبته إن لقبته هوس لودي ورقدين ويسن كرسو ساري كرين جدي أرنكا إذا أهلفت كذا عوشان كنا هاي مدن مدحوين وكل جعلنا هاي إن كل شقينا ديارنا هاي مدن مدحوين ضدك هاي صنع سنين ضدك هاي صنع سنين شلay dadkii calanka ku surayo ku muxuu ahay sacbinayo oo gurbaanka ka dawladana maantana inaad xaqeena ku tumato oo runtii wiil gurigaaga joogo oo aad qaraabad tihiin oo intaad safiir oo maqan baad inta wacdaa xaatir xilbaaniman ku magacaabay muxuu ahay gurigaaga u yimid mudan madaxweyne arinkaas hal sano ka horan ka warhayn laakiin waxaan islahayn waxaas wax madaxweynaha ka suurtagelaya ma aha waa war suuqeeda arinka ayada ah ninka madaxda ah looga dambeeyo 25 jeer baan reerkeyga wallahi intay miidi wacdeen on aniga xakameynaayo dhahay waxaas madaxweynaha kama suurtooday bal isira gaabiya oo wax cabasho la yiraahdo ma jirtay marka mudan madaxweynaha ku salaamaya dhamaantiin waa in salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh